nabadgelyo korkiina aato idil ahaantiinba oo barnaamijkeennii codka warsame iyo wacdaraha nolosha. barnaamijkeenna waxaynu ku wadaagi doonnaa talooyin jacaylka quseeya oo ay ragga siisay gabadha qoraaga caanka ah ee jacaylkii xidhiidhka wax ka qorta ee la yidhaahdo Riley Cooper talooyinkaas oo ay dhextaal uga dhigtay haddaad si dhaba u jeclow sida ay mudan tahay in loo jeclaado ama u qalanta waa dumarka. waxayna tidhi Riley Cooper, haddaad dhab u jeceshahay u jeclow sida ay mudan tahay. waad jeceshahay, waan ogahay taas. waad og tahay la'aanteed inay kadeed kuu tahay noloshu. waad ku faraxdaa inay wehelkaaga tahay, mana ka fikirtid oo kuma muuqan karto nolol ay iyadu ka maqan tahay. haddaba aan wax kuu sheego, waxaad tahay bini'aadankoo dhammina qaladaad bay sameeyaan. qaladka ugu weynina waa inaanad u jeclaan sida ay mudan tahay iyadu. xasuusnow mar kasta sidii aad dareentay kolkii u horreeyey ee aad aragtay. xasuusnow sidii wadnahaagu xawliga ugu garaacmay ee naxdinta iyo riyaaqa isugu jirtay. sidoo kale jidhkaagii leedha macaani martay ee jidhircooday kolkii ay indha kalgacal kugu soo eegtay. xasuusnow dabcigeedii, quruxdeedii, qosalkeedii iyo kaftankeedii maadda midhan ahaa. ogsoonow inay leedahay sifooyin aan cidlo wadaagin oo dumarka kale aanay lahayn oo aad ka heshay iyada. xasuusnow firfircoonnidii, naruuradii, dareenkii kalgacalku ka buuxay ee aad dareentay markii u horraysay aad la sheekaysato ama aad sukaansatay. xaqiijina inaad ilayska u daarto kol kasta dareenkaa xooggan ee kalgacalku ka buuxo ee dhexdiinna. haddaad si dhaba u jeceshahay, u samee oo sii farxad u sheeg mar kasta inta aad jeceshahay ayna mudan tahay in sidaa loo jeclaado. isku day inaad sabab u noqoto had iyo goor qosolkeeda. noqo sababta inay degdegsato kulankaaga iyo aragtidaada. maalin kasta ha ka mid ahaato howl maalmeedkaaga, weliba door muhiima. ogeysii qiimiga ay kuu leedahay ilaa aad dareensiiso inay tahay gabadha keliya ee ku nool dunida. haddaad si dhaba u jeceshahay, ixtiraam, weliba ixtiraam dareennadeeda, doonisteeda iyo dookheeda. ixtiraam fikirkeeda. dhib maaha si kasta uga duwan yihiin kuwaaga, waad qancin kartaa. haddaad si dhaba u jeceshahay, dhegayso iyada. u dhegayso si dhaga raaricin leh marka ay kaaga warramayso sida ay maalinteedu ahayd, si gaara kolka ay ka nafisayso diiqadeedii iyo cadhadeedii ama ay xabo kale oo ay ka cabanayso. dhegayso iyada, hana u dhegaysan inaad u jawaabto ama aad ka falceliso fikradaheeda si degdeg ah. laakiin isku day inaad fahanto waxa ay doonayso inay kuu sheegto ama ay odhanayso. dareensii una muuji in hadalkeeda iyo arrinkeedu qiimi weyn kuu leeyahay. kolka ay kula wadaagto adiga meelaha ay u jilicsan tahay ee galdololadeeda ah, waxyaabahay ka cabanayso, guuldarrooyinkeeda ama qaladaad hore oo ay samaysay, ha isku day inaad saxdo ama aad xal u raadiso. ujeedku waa inaad ogaato inay yihiin waxyaabaha ka dhigay qofka ay iminka tahay. haddaad si dhaba u jeceshahay iyada, dareensii si buuxda inay isku kaa hadlayso oo ay dhowran tahay. waa inaad ogeysiisaa oo dareensiisaa in ayna waxba ka baqin inta aad joogta ee nooshahay. waa inaad u sheegtaa oo ay ogaataa inaad la wadaagayso nolosha dhib kasta iyo aday kasta, waxbana aadan ka hagranayn. waa inaad tustaa inaad farxaddeeda iyo deganaanshaheeda ka shaqaynayso, diyaarna u tahay inaad wax kasta u samaynayso awooddaada, xitaa haddii ay tahay adigu inaad farxaddaada iyo doonistaada ka hormariso teeda si ay iyadu u faraxdo. haddaad dab u jeceshahay, ku oggolow oo ku qaado sida ay tahay. hana ogaato inaad ku baraarugsan tahay waxyaabahay ka hesho, ka xanaaqdo iyo waxyaabaha kale ay ku liidato oo aanan dhibaato kugu ahayn. sidoo kale ogeysii inay ku dhammaystirto iyado si kastoo ay qabiga u jirto. haddaad dab u jeceshahay, tus inaad danaynayso waxyaabaha ay xiisayso ama ay ka hesho in ay samayso. la daawo riwaayadaha ama waxyaabaha kale ay jeceshahay. isu raaca si aad u soo daawataan quruxda dabeecadda iyo deegaanka haddii taasi tahay wax ay ka hesho. haddaad dab u jeceshahay, ku riix oo ku dhiirigeli ujeeddooyinka waaweyn ay leedahay iyo riyooyinkeeda quruxda badan. aaminsanow, ogowna qiimaheeda, adigoo hubinaya inay iyana taa og tahay. ku dhiirigeli inay dhisanto, waa hubaal inay ku dhisi doonto. haddaad dab u jeceshahay, gaadh gunta nafteeda, dareen meelahaan cidda hore dareemin. u dabacsanow, hana samee wax dareensiiya kalsooni darro iyo nacasnimo, gaar ahaan kolka ay kugu horoydo. dhanka kale, hubi sidaa si la mid ah adiguna inaad u bandhigto qofnimadaada dhabta ah, hawna mid u jajaban una naxariis badan. waa inaad u oggolaataa inay si dhaba kuu barato si gaar ah waxa niyaddaada iyo wadnahaaga ku jira ilaa heer gunta hoose ee naftaada. haddaad si dhaba u jeceshahay iyada, soo bandhig jacaylkaaga, kula dhaqan kalgacal badan iyo naxariis buuxda. tus ilaa heerka aad jeceshahay, kana ilaali inaad kalsooni darro ku riddo. ka ilaali inay xanuun daran dareento jacaylka dartii halkii ay ahayd inay faraxdo. waa inaad muujisaa qiimiga ay kuu leedahay iyo halka ay noloshaada u taagan tahay. ha jeclaanin uun iyada marka aad doonayso wax ku dejiya, kaa farxiya, buuxiyo galdololadaada. ha jeclaanin uun iyada kolka aad rabto istareex iyo wax warwarka kaa biiya ama dhayo boogahaaga tagtadii hore. haddaad dhab u jeceshahay, ha dhaawicin weligaa.
wadnaha ha ka dhaawicin. waxaa laga yaabaa inay dhaawacyo hore qabtay kolka aanayba xamili karin dhaawacyo kale. waxaa laga yaabaa oo kale inay qof xidhiidh la lahayd oo ay hagar baxday laakiin ku duqomoobay, si kastoo ahayd qof u wacnayd una daryeeshay. waxaa kaloo laga yaabaa inay xidhiidh la lahayd mid uga dhigay jacaylku inuu yahay wax adag oo xanuun badan. kolkaa mar haddii xidhiidhku iminka idinka dhexeeyo oo aad lamaano tihiin, hubka dhigis ku samee oo difaaca ka soo saar si ay uga soo dhacdo dayrka cabsida, una garowsato inaad mudan tahay jacaylkeeda iyo kalsoonideeda. weligaa hoos ha u dhigin, tusna inay ku hagaagsanayd in adiga ku doorato. tus inaanay jacaylka ka bixin. haddaad dab u jeceshahay, ula dhaqan si habboon oo kula dhaqan dulqaad, naxariis, ixtiraam, kalgacal iyo sharaf. u jeclow sida ay mudan tahay in loo jeclaado. u jeclow si dhaba oo ka timi gunta wadnahaaga, si kalgacal aan soodin iyo shuruud lahayn. i rumayso, haddaad u jeclaato sidan iyo qaabkan, waxay kuu jeclaanaysaa in ka badan intaas iyadu. halkaas bay ku dhammaadeen talooyinkii Riley Cooper ay ragga siisay. fadlan haddii aanad hore noola joogin, Hawiye TV subscribe saar, asxaabtaadana la wadaag. waad mahadsantihiin.